berigan burca ka nimidnay 19 hoosta ka xariiqda 1991kii ayaa bishii juun waxa la soo diray ingiriiskaa soo diray nin ka socda departmentka arrimaha dibadda ingiriiska yaa la soo diray ninkaasi berberu ka soo degay toos boorum ugu yimiday odayaashii markaanu maamulkan joogo odayaashii baan holkaa u shirino odayaashii baa warramay sidii dee berigii uu ahaa sababtii iyo cabsidii jirtay iyo wixii jiray iyo maanta wax xaaji abubakar allah u naxariistay ayaa gebagabeeyey arrinka oo wuxuu yidhi ma arrinka somalilan inaanu ka siman nahay oo inaga go-aan tahay mise inay walaalahayo wax iskugu kaayo dhiman yihiin walaalahayo waxbaa iskugu kaayo dhiman oo annagaa ka wada hadli laakiin arrinka somalilan uu naga go-an yahay horta somalilan way naga go-an tahay wixii dhinaaye maalintii la sheegayaan raadcaynana haddaba fahamtu ninkii joogay uu joogay shirkii boorama dawladdii lagu dhisay dee cigaaluu qaybiyey madaxweyne ku-xigeen iyo wasiirkii gaashaandhiga innaga qaadanay xaabsadoo dhulbaatay wuxuu ahaa guddoomiyihii golaha wakiilada taliyihii booliska waxaa laga dhigay cabdidhibo oo muxuu ahay dhulbaato ah guddoomiyaha maxkamadda sare muuse idaar buu ahaa allah u naxariista wtube dee nin dowlad yaqaan uhaa uu qaybiyey awoodihii uu qaybiyey taliyayaasha ciidamadana saasaa loo qaybiyey hogaamadu saasuu qaybsanaayeen xoogga ugu weyn ee tegey ee dagaaladii sokeeye ee 94kii dhacay tegeyna inagu ahaa ciidankii u horreeyey waxaa qaaday allah u naxariistee axmed xaaji bahdoon baa ka qaaday halkan muxuu ahay xariirad 200 u horreeyey kolkii dambana ilaa 7 kun oo qof baan geynay waa la kala badbaaday haddii kale saxsuuq buu noqon lahaa saxsuuq baa dhici lahaa innagaa kala badbaadinay laakiin askartii haddana maalintaa tagtay maanta